kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeenimo soo dhacay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka kusoo qaadanaynaa. haddaba barnaamijku waxaynu ku bilaabaynaa Iiraan oo digniin u dirtay Faransiiska. maxaa la isku haystaa? Faransiis wuxuu keenay sheeko maalmahan oo dhan intii dagaalku socday iyo kadib wuxuu lahaa miinooyinka dariiqa ku jira ayaan saaraynaa isaga iyo Ingiriis iyo waatii dhowr mar Iiraan ay ka hadashay. hadda markii nimankii waxay soo marayaan dhanka Cumaan waxay noqotay meel Iiraan lagu jibinayo maadaama labadoodu ay u ka dhaxeeyo Hormuska. marka waxay leeyihiin Cumaani ayaga shiray arinta margabiyoodka Hormus inaan wax canshuura la qaadin kan laakiin miinooyinka iyo waxa kana la bixinaya. yaa weylak alid adeer Cumaan meeshaan miina ma gashanin Allah moogtay meesha Hormus Cumaan miina ma gashanin miinada dada gashaday waa hore idin sheegnay laakiin waxba waa ka qaadan laadii maalinta isku daydaan in miina qaadid iyo alaab soo dirtaan way noo taalaaliin ma ka kaftanaa liir miinada meesha ku jirta hawlay ugu jirta ma adika geliyaa liir marka oo waa bixinaynaa leediin maxaa loo geliyay markii hore sidee taa nimankii Faransiiska ay dhaal loo shitay wallahi waxa leeyahay maraakiibtiina meelaha socota miina bixinaynaa le mid walba inta dul tagnaa nagta ka saaraynaa liir hadda idinku aragno eriyada hadda soo gashaa miina baarayna tirada yaa loo hanjabaa Faransiis yaa loo hanjabaa Iiraan caadi ba hadda markaan tusoo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera caawa waxay leedahay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa fariin digniina u diray Faransiiska taasoo ku saabsan marinbiyoodka Hormus. ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Iiraan wuxuu sheegay Iiraan kaliyeed inay tahay mid ka shaqeynaysa miinada ee ku jirta marinbiyoodka Hormus waxayna sheegtay inaanay jiri doonin dawlad kala qaybgalaysa marnaba miina saarid haddii loo baahdo marinbiyoodka Hormus mana ogolaan doono mabda'iyan cidii isku daydana dee talaaba laga qaadaya daandaansi waaye tiri qarannimadeena lagu xadgudbay. marka sheeko waa la beesha ka socod Iiraan ma la gaadi karo nimanka reer galbeedka waa kala dagaalsanahay saanaanahay kuleeyin haddana hoosay ka xiriiraan miinooyinkan nimankan inay qaadaan meesha kadibna Iiraan lagaba qabsada koor marinbiyoodka dhan inta la soo dago oo maaragtay Mareykan uu yimaado iyo waxa kan ay qabsadaan Iiraan marka ma ayada la gaadi karaa waxay tiri yaa weylak miina saara iyo shaqo kuma leedin miinadan annaga gashanay marka u baahnaan annaga saareen annaga ma idin wacanay miinadii angelina waa naga dhuntay kaala saara maan idin niri ma annaga aqooweyne maxay taa waxa ka hadlaysaa shalay maadika loo geliyay. marka Iiraan Faransiiski indhaha u shidata kulay waa la yaabay caawa way بريتو تلادada waxa loo balasayay Mareykanka wufuudiisii wixii halkaas ay tagayaan aqalka cad waa tuulaha Witkoff iyo ninka la yiraahdo Kushner way soo baxayaan waxay u socdaan Dooxa. Iiraan marka ma tagaysaa Iiraan marka wasaaraddeeda arrimaha dibadda ayaa caawa war official oo ku saabsan shirkaas soo saartay haddii wafdi ka socda Iiraan uu tagayo hadduu tago shaqada uu meesha u tagayo waxa dhan war faahfaahsan ay soo saartay. haddaba markaan tusoo wararkii ugu dambeeyay wafdiga Iiraan wafdi Iiraaniyiin ayaa waxa la sheegay inay booqan doonaan berito magaalada Dooxa iyagoo aan wax kulama la qaadan doonin dhinaca Mareykanka. wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan waxay sheegtay caawa wafdi Iiraaniyiin ayaa booqan doona magaalada Dooxa si ay ula socdaan hirgelinta heshiiska isfahamka gaar ahaan arrimaha ku saabsan hantida ka xaniban Iiraan. ma jiri doono kulamo gorgortana oo heer kasta leh oo aan la yeelan doono dhinaca Mareykanka xataa maalmaha soo socda. booqashada wakiilada Mareykanka ee Qatar lama xiriiraan
booqashadayada wafdiga Iiraan wax shaqaan isku leenahay ma leeyin waxaan diiradda saaraynaa annagu hirgelinta heshiiska isfahamka waxaana si taxadar leh uga shaqaynaynaa sidii aan u gaari lahayn dalabaadkayaga iyo waxa aanu doonayno in la fuliyo wali ma aanan gelin marxaladda gorgortanka heshiiska madambaysa haddaba waxay sheegaysaa Iiraan in wafdigeedu marnaba aanu wax wada xaajooda la geli doonin wafdiga Mareykanka ma ujeeda halkaas marka waxay leeyihiin xaalku halkaas uu joogaa marka wafdi waa diraynaa meesha uu tagayaa laakiin wax wafdiga Mareykan annagana dhex maray ma jiraan Mareykan wuxuu rabaa qodobadii shalay lagu heshiiyay qodobkii shanaad oo Iiraan meesha kontarooleysa in laga hadlo maxaa la hadlaa tiri waa soo dhamayna kaas waxa kaliya meesha aan u tagayno waa in wada hadalladu hore u sii socdaan lacagaha naga xaniban iyo siday noo soo gaari lahaayeen iyo afaraasa ka hadlayna laakiin kan waa laga soo gudbeen markii uu intuu jiray markii uu saxiixay ma iska akhrineen miya sheekadu halkaas balas waaye haddaba marka waxaa jira qodob kale oo muhiim ah jira isagana ku saabsan arinta Lubnaan wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa wuxuu tagi doonaa Lubnaan waa markii ugu horeysay si official ah isagoo warqad ka wada madaxda Suuriya uu madaxda Lubnaan la kulmay hadda dhawaanahan waxa aad loo hadalay Trump hadal uu yiri Trump oo iska hadlaa wuxuu leeyahay Israa'iil waxba waa ka tiri weysa Xisbullah hay si Xisbullah hubka looga dhigo oo loo edbiyo waxa ka adag nimanka Suuriyaanka ayaan ka adeejinayaa Ahmed Ashrac iyo kooxiis macnaha waxay weerar ku qaadayaan gudaha Lubnaan way galayaan Xisbullah la soo dagaalamay isla markii Ahmed Ashrac waa tuubeeni laakiin si official ah nimanyo idin ma soo socono wadankiinana ma soo weerarayno shaqana idinku leeyin arin kale idin kala hadlaynaa iyo wixii kale naga dhaxeeyo darisnimo aan ka wada hadal arinkaas marka waxa loo soo diray hadda wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Shaybani haddaba marka aad tusoo wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al-Arabiya wuxuu leeyahay wasiirka arrimaha dibadda Suuriya ninka la yiraahdo Shaybani ayaa wuxuu ku jeedaa Beirut isagoo fariin deganaanshiye ah wada oo marka uu ku sheegayo inaysan wax niyada aysan u haynin Suuriya inay faragelin military ku samayso Lubnaan oo ay gudaha Lubnaan gasho haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Asad Shaybani ayaa la filayaa inuu Beirut tago labada maalmood ee nagu soo aadan booqasho rasmi ah wuxuuna halkaasi ka samayn doonaa wada hadal مسؤوليين لبنان هدي تاي مدحوينها رئيس الوزراء قدوميها برلمان كبا أولاد لدونه وعنا لا شيء وذا هذا الله داسي إنه قصين دونان حرير كلابد الدل محابيست سوريان كحرن جدها لبنان سدي لوجوري لها سوريا يوم مرحلة ku saabsan dhanka xuduudaha ammaanka sida loo adkeyn lahaa waxaana la sheegay in Shaybani uu u cadeyn doono madaxda Lubnaan in madaxda Suuriya aanay marnaba ku fakirin xataa inay faragelin military ku soo galaan Suuriya ee Lubnaan waxa faragelina anaga teenana haysataabe Israa'iil maalin walba goboladeena iska soo gasho ka adeegad darca iyo dhulkaasi iska soo gasha anaga adduunka u qayla dhaaminay Trump haduu sheega nimanka dhulkeena soo xaluulanaa maalin walba waxay rabaa ka sameeyna ma naga qabto marka anagu ma noo diraa Xisbullah maxaa naga galanay marka meesha waxa ku jira oo Trump rabaa inuu uga faa'iideysto waagi Bashar al-Assad jooga Xisbullah ciidan ay leedahay Suuriya inta yimid qoladan Sunniyiinta hadda xukunka qabsaday la dagaalami jireen oo layn jireen marka waxay leeyihiin uqdadaas ay qabaan nimanka Suuriyaanka marka hadii fursad la siiyo hub la siiyo nimankaas way galayaan marka iyaga isku baabeen kuwanana waa kuwa fiican ma aha oo cadow arka Mareykanka kuwana kaba sii daran marka labadooda in la isku jabiyo marka yaa waalan dadku waa ilbaxanad Suuriya waxay tiri may anaga teena haysataa sheekhow maxaa Xisbullah shalay idin laysana hadda ma ayaan may anaga soo xukunka ma haysana خلاص ayaga Israa'iil haslbo anaga teena haysataabe
waddankeenii ama saas israa'iil maalin walba soo galaysaa inay marka wararkaasu halkaasay marayaan. haddaba 24 saac ee lasoo dhaafay iyadoo buuq uu ka jiro Hormuz oo fawda ay ka jirto ayaa waxaa la sheegayaa 22 markab inay markaa mareen, dhammaantoodna ay Iiraan ay markaasi wax ka ogeyd maridooda oo ay ogolaanshiyo siis. 22 ayaa maray 24 saac ee lasoo dhaafay. marka inkastoo ay tiradu yar tahay haddana waxaa la filayaa maadaama hadda xiisadu degan tahay in ay soo maraan, inkastoo buuq uu ka taagan yahay Maraykan iyo reer galbeed iyo carabtii kale iyo kulli Cumaan dhankeeda la soo maray rabaan, macnaha biyaha Cumaan in dhankaas la soo tarsado. Iiraan waxa leedahay Cumaan iyo Iiraan iyo wixii ka dhaxleh markabkii anigaan ogeyn hadduu soo maro nagtaa ka saarayo. waa waxa dagaalku ka dhacay habeenadii la soo dhaaf. barnaamijkayga caawa naga inta asxaabay la garay oo shar garay barnaamijka meel kastoo naga daawareysaan intaan markale kulmayno.